Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guys soo dhawaada akhyaare maanta waxaan doonaynaa maxaan ku ognahay lix ciyaaryahan ee kubadda cagta ugu mushaaraadka badan waataba lix ciyaaryahan intaan barnaamijkeen u gudagelin guys waxaan idin codsanaynaa inaad barnaamijka aad noo like gareysaan noo subscribe gareysaan intaas waa tartaaran haddaba barnaamijkeena gudaha aan u galno haddaba waxaa jira lix ciyaaryahan oo kubadda cagta ka xamaystaan runtii runaantii horta kubadda cagta shaki kama taagna inay tahay mid loogu daawashada jecel yahay caalamka oo dhan halka ciyaarta laanta labaad ku jirta ay tahay ciyaaraha cricketka ciyaarta kubadda cagta inta usoo daawasho taga waxaa lagu qiyaasaa 3.5 bilyan oo taageerayaal waa taaba ka badnayn halka ciyaarta labaad loogu daawasho jecel yahay ay tahay midda cricketka kaasoo usoo daawasho tagaan 2.5 bilyan oo taageerayaal ah runaantii caanimada weyn waxay sidoo kale sidataa mushaaraad fara badan tirada waa mid sare usii kacaysa umana muuqato mid hoos usii dhacaysa haddaba wakan wax ka ogow lixda ciyaaryahan ee ugu mushaaraadka badan nambar waxaa ku jira xidiga Leicester ee dhawaangalka ah Cristiano Ronaldo kaasoo sanadkii oo dhan qaadan doono lacag dhan 200 milyan akhriskiisa isku dhaas ninka horyaalka Sacuudiga sida uu tago horyaalka Sacuudiga wuxuu noqday horyaalka ugu shidan caalamka sababtoo ciyaaryahan fara badan ayaa meesha tagaw lacag waali ah mushaar waali ah horyaaladii kale Yurub oo dhan oo hawada ka qabsaday halka xidiga labaad uu yahay xidiga dhawaangalka Al Ahly asna ka dhisan dalka Sacuudiga taasoo la yiraahdo Neymar kaasoo dhawaan kaga soo biiray dhanka PSG oo ka dhisan horyaalka Yurub xidigan ayaa lagu qiyaasaa lacagta uu qaadan doono sanadkii 36.5 milyan oo dollar waa xidiga dhawaan dhahay haddii aad muuqaal yar oo Sacuudi ka hadlayo ama wax yar oo muuqaal adiga amaan Sacuudi ah 580,000 oo dollar akoonka ku shaqeynaa ama hal sawir bas leh buu nagu sharaf leh ciyaaryahanka ugu mushaaraadka badan ciyaaryahanka labaad xidiga saddexaad uu noqon doono xidiga reer France asigana dhawaan galka ah waa xidiga reer France Karim Benzema asna heshiiskiisu wuxuu ku kacayaa 172 milyan sanadkii oo u dhiganta 222 milyan ayuu heli doonaa oo dollarka Mareykanka ah xidigan ayaa dhawaan kaga soo biiray naadiga kubadda cagta Real Madrid kadib markii si lama filaan ah ugu doortay naadiga Al Ahly taasoo u soo bandhigtay qarashaad fara badan oo waali ah kaasoo xidig laftirkiisa xataa madaxa ka gashay marka horyaalka Sacuudiga sida Ronaldo u tagay waa shiday halka xiga saddexaad uu yahay xidiga uu ciyaara naadiga Inter Miami ee ka dhisan dalka Mareykanka waa Lionel Messi naadiga sida uu tago wallahi wuu shitay sababtoo ah koob uu ku guuleystay gool dhalin uu iska wadaa uu iska farjinayo gool dhalinta wax ilaa hadda oo celinayo male xidigan asagana dhawaan galka ah wuxuu salama filaan uga soo biiray naadiga dhanka Paris ka dhisan ee Faransiiska ee PSG Lionel Messi ayaa la dhihi karaa waa ciyaaryahanka ugu fiican kubadda cagta taariikhda isla markaana dabcan mushaaraadkiisa ayaa ka turjumaya heerka uu joogo si kastaba ahaatee Messi ayaa mushaar dibis ka qaatay heshiiskii weynaa ee PSG markii uu dhaqaaqay MLS-ka Mareykanka Lionel Messi asigana wuxuu qaadan doonaa sanadkii 42 milyan oo dollar ninkan waxa waaye sideen mana la ka filanaynin inuu horyaalkaas aadi doono waa xidiga ugu koobka badan wuxuu haystaa koobka adduunka wuxuu haystaa champion wuxuu haystaa oo inta horyaal oo tago koobka laga ciyaaro oo dhan ninkii qaado waaye ha noqoto Barcelona uu kaga soo bilaabay PSG Inter Miami waxa waaye ninkan naadiga taga buu shitaa Leo waa xidig weyn waa xidig haysta
jaa-isad walba oo kubadda cagta laga bixiyo, ha noqoto penalty oro, ha noqoto golden bootka, ha noqoto ayo nooc oo hadiyada kubadda cagta laga bixiyo. ninkan maraykanka oo tagay, inkastoo horta horyaalkan oo tagay macnaha sida sacuudiga oo kale uusan u shidnayn oo u waalnayn, hataa waxaa jira xidigo kale oo asxaabadiisa oo kamid yihiin difaaci barcelona iyo xidiga qadka dhexe ee barcelona ay xaggay u tageen. runtii naadiga inter miami la dhaho waxay ku jirtay kaalimaha ugu hooseeyaan, maantana waxay noqotay naadiyaasha loogu cabsiga badan yahay, sababtoo ah xidigan ayaaba shitaba naadigii. runtii waxaan leenahay hambaliyo, maadaama nin culus ay gacanta ku dhigeen inter miami. markuu tagay kaalinta serbiyada waxay u jirtay hal naadi bisa ka hooseedow. ninkan markuu tagay maantana koob intuu u qaaday gool waa la iska farjinooyaa, wax celinooyo male. runtii dadaal badan iyo juhdi uu ku bixiyaa ninkan siduu xirfadiisa u horumari lahaa. ninkan waa nin legendary ah, kooxuhu samar oo dhan ma iloobi doonaa, sababtoo ah wuxuu kula guuleystay koob, ha noqdo afkan faransiiska iyo ha noqdo midkan hadda uu joogo. leo waa xidig weyn, waa xidig legend. xidiga saddexaad oo aanu gudbi doono wuxuu noqon doonaa xidiga reer faransa asigana u dhashay. xidigan dhowaan ka yimaada qaaradii oo ku dhashay ee africa, waa xidiga reer faransa, waa libaaxa, waa legendary b s g, waa Kylian Mbappe, ninka ugu speedka badan naadiga b s g. asigana sanadkii wuxuu qaataa 100 milyan oo euro. Kylian Mbappe ayaa waxaa loo arkaa in uu yahay mid xidig si weyn usoo baxay, waxa uuna sidaas ku noqday 3 ka mid ah 4 xidig ee ugu mishaaraadka badan kubadda cagta, si gaar ahaan kooxdiisa b s g. inkastoo uu si joogto ah u sheego in uu naadiga ka tagayo, uu doonayo inuu ku biiro naadiga faca weyn ee ka ciyaarta horyaalka Spain ee Real Madrid. haddana b s g waxay lacago waali ninkan ku fardhinaysaa, lacag xad dhaaf ah. runtii waa asigana xidiga saddexaad ee ugu mishaaraadka badan, xidiga ku xamaystay kubadda cagta. ninkan walow uusan weli koob champion uusan qaadin, balse wuxuu haystaa koob adduun, horyaalka iyo koobab kaloo iska yaryar oo macno lahayn. laakiin still ninkan wuxuu u hanqantaagaya waxay tahay waxa keliya ugu harsan waa inuu ku guuleysto koob champion league. xidiga afraad oo aan ka hadli doono waa xidiga shanaad aan dhehe oo aan ka hadli doono waa xidigii hore ee Chelsea N'Golo Kante, oo asigana dhawaan ku biiray naadiga Itixaad ee ka dhisan dalka Sacuudiga. xidigan ayaa naadigaas kula midoobay weeraryahanka kooxda Real Madrid Karim Benzema, iyo xidiga isku dhalashada ee wadanka ay yihiin ee Faransiiska Karim Benzema. N'Golo Kante in yar ayaa maqashay N'Golo Kante markii uu daafaca qadka dhexe Faransiiska uu la saxiixday Leicester 2015 ayuu soo shaabaxay ninkan. taasina waxay isla markiiba u bedeshay Kante mid ka mid ah ciyaartooyda furaha u ahaa guuleysiga horyaalka ugu cajiibsanaa waqtiga casrigaas, sababtoo ah Leicester City oo 2015 loo ciyaaray, qadka dhexaa la iska qabsaday, horyaalka afarta laga saaray, adduunka oo dhan la qabsaday. lacag badan kadib waxa uu dhaqaaqay kooxda Chelsea, ayadoo Kante uu qaaday horyaalka oo Premier League iyo Champion League 2020. wuxuu sidoo kale koobka adduunka kula guuleystay Faransiiska 2018. hadda uu ku jiray taada 30 meeyadii. Kante waa ciyaaryahaankii kale oo lacag badan ka soo xareeya Sacuudi Carabiya, isagoo kula biira saaxiibkiisa reer Faransa Karim Benzema kooxda Al-Ittihad. N'Golo Kante ayaa sanadkii qaadan doona lacag dhan 86 milyan oo dollar. runtii ninkan waxaa waaye saas baan noola buunbuuniyo lama yaqaano, balse waxaa waaye ninkan waxtar iyo natiijo leeyahay. champion waa la qaatay, horyaal waa la qaatay, koob adduun waa la haystaa, saanan loo yaala mana la yaqaana, mana la buunbuuni. ma yaqaan cunsurimadu may ka tahay. xataa xidigan waxaa ku naadiga Al-Ittihad xataa waxaa kula jira xidiga Liverpool oo qadax ugu ciyaari jiray Fabinho.
horyaalkan Sacuudiga waxaan dhahay waa horyaal gacana u taagay sababtoo ah horyaalka shil ma baaragto lacago waali Sacuudiyaanka soo bandhigan oo aan loo malaynaynin lacago malaayiin dollar aa lagu bixiyay war asxaabi noo share garee noo subscribe garee imaamada nagu tuura intaan waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkii ahaa waa kuwa lix ciyaaryahan oo mushaaraadka badan kubadda cagta iyo horyaalka lacagaha fara badan ku bixiyay soo iibsashada ciyaartooydaas saaxiibayaal waa inoo barnaamijyo kale insha Allah nooli kulante waa mahadsantiin guys